soo dhawaada saaxiibadeena YouTube filimkan wuxuu ku bilaabanayaa gabar fadhida qol kamid ah xabsiga sidoo kale waxaan arkaynaa nin lagu magacaabo Ted oo si uu u arko gabar la yiraahdo Lisa waxaana weydiisay inuu xusuusto markii ugu horeysay ay kulmeen waxay dib ugu noqonaysaa sanadii 1969 oo aan aragno sanadaas Lisa inay tahay haweeney kaligeed ah oo bar la joogto saaxiibkeed John halka ay kulmeen nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Ted uu ag fariisay uu u dhowl cadeeyay waxaana wadaageen qofka ciyaarkoodii ugu horeeyay Lisa waxay dib ugu soo laabatay gurigeeda inanteeda Molly sidoo kale waxay u carartay jikada si ay u hesho kadib noloshoodu waxay yeelatay isbedel aad u xun markii aan aragno muuqaalo aan maqalno warbixin ku saabsan dilal isdaba joog ah ay ku lug leeyihiin dhowr dumar ah oo dhibanayaal ah muuqaalka Ted ayaa la sawray asagoo dambiilaha oo gaadhay wata saqdii dhexe waxa uu si xushmad leh askariga ugu sheegay inuu yahay arday barta sharciga una ku sii jeeday gurigiisa balse isla markiiba way xireen boolisku asagoo looga shakisan yahay inuu afduubtay haweeney lagu magacaabo Ted ayaa helay qareen lagu magacaabo John kaas oo damiin ahaan uga sii daayay xabsiga waxaana uu dib ugu laabtay gurigiisa Lisa oo ka xanaaqsan xarigiisa gaar ahaan maadaama uusan waxba u sheegin ama uusan la soo socodsiin maghribkii ay casho u soo wada baxeen waxaana uu faahfaahiyay wixii ku dhacay intii uu ka maqnaa waxaana uu sheegay in qof magaca booliska uu bixiyay uu taas oo u keentay in la xiro uu ogaaday gaari madow oo daba socda tan iyo markii uu ka tagay Lisa waxay u sheegtay inuu gaari madow uu daba socday meel kasta uu aado markii dambe uu ku jiray gudaha maktabadda gabadhani waxa ay aqoonsatay wareysiga kadib waxay aragtay baabuur madow ahaa oo daba joogay way ku oraday wayna qaylisay waxayna u carartay dhanka gaariga si ay uga hortagto waxa ku jira laakiin baabuurka isla markiiba ka hor inta aysan bilaaban maxkamaddu afduubka qareenka John Corol waxa uu u keenay maqnaanshiyaha haweeney sidoo kale Lisa ayaa jirta halka gabadha waxay isku daysay inay cadeyso in Ted uu ahaa afduubka qareenkiisa ay shaqo fiican qabato sida uu isku dayay inuu cadeeyo inuu marageedu uu yahay mid been abuurad ah dhanka kale boolisku waxay heleen macluumaad kala duwan Ted iyo Lisa waxay ku sugan yihiin dukaanka xayawaanada lagu iibiyo waxaanay kula kulmeen gabar lagu magacaabo Carol oo kamid ah dadka yaqaana Ted waxay bilowday inay ku horshukaansato Lisa horteeda Lisana way hinaastay waxay ku tiri Ted inay ku eedeynayso waxyaale aan jirin oo uusan hubin isagu maalintii maxkamadda Ted ayaa la geeyay xabsiga waxa lagu qasbay inuu ka tago dhammaan waxyaalihii uu sitay oo ay kamid ahaayeen dharkiisa una u bedesho dharka maxaabiista ay xiran yihiin kadib waxa uu wacay Lisa oo u ballan qaaday inuu dib ugu soo laabanayso isla markiiba waxa ay sheegtay inay doonayso inay aragto laakiin qaar kamid ah dambibaarayaasha oo la xiriir ayaa u sheegay in Ted lagu tuhunsan yahay dambiye kale oo farabadan way ka murugootay markii ay maqashay waxaanay u sheegtay kadib markii ay dib ugu wacday dhinaca kale Ted waxa uu isku dayay inuu wax ka barto kiisaskiisa si uu ugu diyaar garoobo soo xaadirida maxkamadda ayaa dambibaarayaasha weydiiyay su'aalo ku saabsan joogitaanka magaalada Colorado waxa uu sheegay inuu weligiis tagin magaaladaas noloshiisa qareenkiisa ayaa ugu yeeray oo uu sheegay inuu baaruhu soo qabto oo uu been sheego Lisa waxay rabtaa inuu rumaysto in Ted oo wax dambi ah lahayn oo ka tagay qareenkiisa oo ka tagay sababtoo arrimuhu way khaldan yihiin si aan waxba u sameyn karin in loo wareejiyo xabsiga Colorado Lisa saaxiibkeed ayaa soo booqatay oo u sheegtay inay ku kalsoon tahay Ted in aan waxba galabsan Lisa way dhibsatay waxaana uu ka saaray baalintii xigtay waxa uu wacay Lisa oo sii weydiiyay inuu la hadlo xitaa markii aysan jirin xaaladda ay la hadasho laakiin in ka badan ayuu wacay markasta oo ay dhageysato dacwadda soo socota ma helo damaanad waxay u sheegtay inay maxkamaddu ciqaab dil ay ku xukuntay wuxuu la xiriiray Lisa si ay ugu sheegto waxa dhacay balse uu ka carooday laakiin waxay xiratay taleefankeedii maxkamadda dhawaan dilka Carolid qareenkiisa cusub ee Jim waxa uu qabaa in tan ay qaladka kaliya ee Ted uu bilaabay qorshihiisii bilowgiisii wariyaasha ayaa bilaabeen inay wareystaan asagoo oo xabsiga ku jira oo ay ka wareystaan si ay u kasbadaan dareenka dadweynaha intii ay socotay dacwadani waxa dhexdhexaad ahaa in Ted uu helay fursad waardiyaha ahaa oo daawashada asagoo xilxodanaya mid kamid ah gabdhihii la socotay Ted ayuu u sheegay waardiyaha inuu u baahan yahay inuu soo waco oo aad moodo inuusan qorsheynayn ilaaliyaha waxa uu maleeyay in Ted uusan
wax dhibaato ah uusan u keeni doonin markii ay dib ugu laabatay lahaasawaha naagta Ted ay ka faa'iideysanaya oo daaqada ka boodaya si uu u baxsado balse waxa aragtay naag laakiin wuu sii orday asagoo dharkiisa iska bedelin wuxuu aaday u soo booqdo waxaana uu sheegay inaysan sii wada karin taageerideeda asaga maadaama xaaladiisa ay ka sii darayso